Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Habeen wanaagsan khayrta wada nagala xiriirta halkan oo barta YouTube-ka aan ku leenahay od maalinba nagala socotaan. Caawana waxaan kusoo qaadan doonaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed oo tacsi u diray Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hooyadiis ay ku geeriyootay magaalada Dubai ee carrada isu taga Imaaraadka Carabta. Waxaa kaloo aan kusoo qaadan doonaa shanta maamul goboleed ee dowladda federaalk Soomaaliya oo go-aan ku gaaray inay xiriirka u jiraan dowladda federaalk Soomaaliya maadaama mar dhow ay xiriirka u jireen wasiirka maaliyadda dowladda federaalk Soomaaliya. Haddii aan ku horumarno shacabka Soomaaliyeed ayaa tacsi u diraya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliyeed ee dowladda federaalk ahayd Soomaaliya madaxweynihii toddobaad ee dalka Soomaaliya. Marka waxaa la leeyahay Sheekh Shariif waxaa geeriyootay hooyadiis Xasano oo ku geeriyootay wadanka Imaaraadka Carabta oo muddo ay ku xanuunsaneed. Marka dadka tacsida u diraya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuuna dhahay maamada Ilaahay ha u naxariisto shacabka Soomaaliyeed ee ka baxday. Sheekh Shariifna waxaan u dirayaa tacsi gaar ah maamada qabrigeeda Ilaahay ha waasiciyo jannadii firdowsna Ilaahay ka waraabiyo. Waxaana tacsidaas u diraya saaxiibkay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu kusoo qoray page-kiisa website-kiisa page-ka uu ku leeyahay Facebook-ga. Waxaa kaloo isagana tacsigaasi oo kale mid lamid a diraya Sheekh Shariif ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sheekh Shariif u diray tacsi asagana ku saabsan maam Xasano dhimashadii ku timiday geeridii naxdinta lahayd. Waxaa kaloo ayagana tacsi dirayay shacabka Soomaaliyeed oo ayagana u tacsiyeynaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxaa ka mid ah madaxda u tacsiyeynaysa Sheekh Shariif waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya ayaa isagana u tacsi u diray Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxaa kaloo tacsi diray madaxda maamul goboleedyada qaybo ka mid ah ayaa ayagana tacsi soo diray oo u tacsiyeynaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee hooyadiis ku geeriyootay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. Marka anagana haddaan nahay baxda saxaafadda waxaan u diraynaa tacsi Sheekh Shariif geeridii naxdinta lahayd ee ku timid hooyadiis Ilaahay ha u naxariisto qabrigeedana Ilaahay ha waasiciyo. Inta kale ummadda Soomaaliyeed iyo inta kale muslimiin oo dhimatan Ilaahay ha wada naxariisto annagana Ilaahay ha naga wada daba naxariisto. Marka tacsidaas iyo waxaa kale laleeyahay dad kale oo fara badan ayaa tacsi dirayay oo aad iyo aad Sheekh Shariif ugu diraya tacsida. Marka Facebook haddaa gashid waxaa arkaysaa tacsida maamada ayaa socoto meel walba. Marka Sheekh Shariif iyo tacsidiisa haddaan ka gudubno Ilaahay ha u naxariisto maamada qof walba oo muslim ahna Ilaahay ha u naxariisto samir iyo imaan Ilaahay ka siiyo. Qof walbana waxaa waaye wuu dhiman doonaa adduunkan waxaa waaye ii sheeg wixii uu shaqaysta ayaa ka horreyn doono. Marka waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto maamadaas ma maxsano Ilaahay qabrigeeda ha u waasiciyo. Intii kale oo dhimatay oo muslimiin ah iyo waxaa waaye qof walba oo dunidan ka tagay oo xaq Ilaahay sheeg ku dhintay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. Wixii gaalo iyo wixii dhibaato kale sameeyay iyo wixii dad dilay ummad dilay ayaga u taalaa. Laakiin intii muslimiinta Ilaahay ha u naxariisto nadiif qalbigooda Ilaahay uga dhigo qabrigoodana Ilaahay ha waasiciyo. Haddii aan taas ka gudubno waxaan eegi doonaa maanta madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa la leeyahay waxay xiriirka u jireen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk Soomaaliya. Marka taas waxay muujinaysaa inaysan wasaaradda kaliya ahayn ee qorshahooda uu yahay inay xiriirka u jiraan dowladda federaalk Soomaaliya. Marka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu haystaa leeyahay ilaa iyo 3 maamul goboleed. 3daas maamul goboleed oo kala ahaa Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayuu gacanta ku hayay. 3 maamul goboleed oo mar walba waxaa waaye tiirka u ahaa oo saaxiibkana la ahaa. Marka hadda Xasan Sheekh waxaa la leeyahay waxaa dhaamay Xasan Sheekh waxaa dhaamay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo haystay 3 maamul goboleed oo si toos ah gacantiisa ugu jirtay kuna xirneed dowladdiisa. Lafta garan oo ognahay in magaalada Baydhabo xoog lagu geeyay roob la soo xiray halkaas asaga dad lagu laayay oo asagana halkaas lagu saaray. Galmudug oo ognahay ninka la yiraahdo sababta qaabkii oo loo geeyay asagana ninka la yiraahdo Qorqor oo halkaas asagana ciidamo iyo awood iyo doorashada iyo ku soo baxay waa la soconaa. Hirshabelle ayadana waa tii laga qaaday ninka la yiraahdo Maxamed Cabdiwaare in hawada laga saaray ee la geeyay Guudlaawe. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3daas qofood ayuu gacanta ku hayay maamulkoodana gacanta ayuu ku hayay oo waa tii oo maamuli jiray saaxiib dhowna oo la ahaa. Marka hadda waxaa leeyahay waxaa saaxiib la ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3daas maamul goboleed wuxuuna dhaamay la leeyahay madaxweyne hadda joogo Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo gacantiisa aysan ku jirin xitaa hal maamul goboleed xataa gacanta kuma hayo Xasan Sheekh Maxamuud. Haddii aad si u fiirsana warkaas waa sax. Labada maamul goboleed oo la dhahayay waxay saaxiib leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud waa Jubbaland iyo Puntland labaduba hadda dadka xiriirka u jira shirka hoos ka wada ay ka mid yihiin dowladda Itoobiya ayayna xiriir la sameysteen. Marka Xasan Sheekh Maxamuud waxaa leeyahay meel cidla ah inuu kusoo dhici doono ay u badan tahay. Qaab uu u maaray ayuu la wato garowe tagay oo sheegeen kulan la yeeshay Saciid Cabdullaahi Dani ka wada hadleen arrimaha iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo qaabka isu soo dhawaasho la muujin karo. Marka waa tii la dhahay garowe ha la isugu tago 5 maamul goboleed iyo madaxweynaha
marka waxaa u maleysaa dhibkii farmaajo lagu hayay inuu weli uu taagan yahay. Marka haddii shalay ay dhaheen labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland farmaajo wuu qaldanaay, xasan sheekh maxamuud aan dooranay, asagaan soo saarnay, meeshii aan rabnay usha ku dhacday. Haddii ama shalay aa dhahday oo maxaa Cabdullaahi farmaajo misaas kugu dhaafay, maxaa u diiday inaad taageertid ninkii aad adiga taageeraysid Galmudug iyo Hirshabelle iyo waxaa la dhahaa nimanka la yiraahdo isha koonfur galbeed qiil aan u haynaa. Sababta qiilka loo hayo waxaa waaye way ka hor imaan karaanoo maamulka hore la shaqaysanayeen xiriirna la lahayn. Waa war cad waaye, war xun maa kaas. Adu maxaa Cabdullaahi farmaajo madaxweynaha hore Soomaaliya la shaqayn jirtay, haddii madaxweyne cusub u yimaado waa khilaafi kartaa. Sababtoo isku fikir ma tihiin, ninka isku fikir aadan meeshuu ka baxay. Okay, kan hadda asaga maadaama isku fikir ahayn labada maamul goboleed ee isku fikirka ahayn waa Puntland iyo Jubbaland. Weliba reer Puntland reer Jubbaland waxaa usii dheer reer wasaarihii ayaa la siiyey oo ka imaaday Jubbaland. Maxaa Axmed maxaa islaam reerkiisa ka yimiday. Marka inuu khilaaf keena ma ahayn, xalli khilaaf ayuu wadaa. Siciid Cabdullaahi Dani asagana wuxuu ka andacoonaa in reer wasaaraha Soomaaliya loo diiday oo meesha ka baxday. Waxaa loo diiday haddana inuu reer wasaare qof asaga ka socdo la magacaabo, way ka baxday. Waxaa kaloo lagu sii sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxaa loo magacaabo nin asaga liid ku ah oo isku dhacsan yihiin loo magacaabo. Waa culays kale. Marka Siciid Cabdullaahi Dani oo kale halkaas ayuu ka xanaaqsan yahay oo meeshaas ayuu ka biyo diiday. Madaxa ayuu luxluxaya, wuxuu leeyahay wax ka jira male dowladda federaalka Soomaaliya. Marka meeshaas ayuu ka xanaaqsan yahay. Marka wax maamul goboleed ah oo xasan sheekh maxamuud maanta gacanta ugu jiro la dhihi karo saaxiib ayay leeyihiin ama dowladnimadiisa ayay micnaha la shaqeynayaan ma jiraan. Shantii maamul goboleed way shireen, hoos ayay iska waceen, waxay leeyihiin maxaa Cabdullaahi farmaajo dhaamay ninkan, mana yeelayno, xaaladeen saan maaha, mana noo toosno. Marka waa inaan xiriirka u jarnaa. Inteen ka bilownaa marka xiriirka u jarnay, intee ka bilownaa? Waxaa laga bilaabay wasaaradda maaliyadda oo iyada dhaqaalaha kusoo dhacayay. Waxaa la yidhi kow xiriirka waxaan u jarnay shanta maamul goboleed haddaan nahay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya. Okay, waa u jarteen kawa soo qaad. Wasiirka haddii xiriir asaga dowlad ma ahe, xiriirka haddii asaga loo jaro waxaa kusoo xigto dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa xiriirka u jarnaya marka kale kusoo xigto. Sababtoo waddo kale oo furan oo hartay ma jirto. Wasiir ayaan xiriirka u jarnay. Maxaa Cabdullaahi farmaajo iyo maxaa la dhahaa isheeg xasan sheekh maxamuud ayagoo isheeg saaxiibo ah oo garbaha is haysto oo heshiis ah oo isu quslaya ayay kala tageen. Marka si sharaf leh ayay ku kala dhamaysteen. Waa dhici jirtay asagana sidaas oo kale markuu xilka la wareegay saas oo kale ahayd dad nabadeed oo si wanaag u kala wareegay ayay noqdeen. Marka maadaama raggii xilka isku tartamayeen saas sharafta isugu wareejiyeen, waxaa la rabaa idinkana inaad soo dhaweysiin oo nin walba yimaado hoosta ka gashan. Okay, marka haddii aad tirahdeen marka dowladda xiriirka u jarayna maamul goboleedu xaggee u socotaa? Maxaa Cabdullaahi farmaajo wuu qaldanaa, xasan sheekh maxamuud hadda wuu qaldan yahay, beri ninkii yimaado wuu qaldan yahay, kuwii shalay jooga way qaldan yihiin. Maamul goboleed intee barka u socdaan ayaga ma saan ayay ku jiraan maalin walba waxay ku jirayaan hebelaa qaldan, hebelaa qaldan, hebelaa qaldan. Okay, farmaajo qaldanay haye, xasan sheekh wuu qaldan yahay haye, beri nin kala imaado wuu qaldan yahay haye, beri dambe mid kala imaado wuu qaldan yahay. Idinka goor yaa sax idin baray, goormee wax saxdeen idinka? Wanaagga xaggee ka hesheen? waaba idinkaaba dhib laydinku qabaa maamul goboleeda dowlad walba imaada lugaha qabataan. Maxaa Cabdullaahi farmaajo dowladiisa Jubbaland iyo Puntland weliba reer aan u xig ayaa lugaha ku dhegay oo meel kasta ku qaylinay oo ilaa diyaaradii la iska xanibo oo meel xun isla gaarin. Marka maamul goboleedka waxaan dhihi lahaa xishoodaano, dowlad kastoo timaadana lugaha aysan qabanan. Dowladaha maamul goboleedka waa dhib ayay ku hayaan, walahi dowlad kastoo imaada dhib ay ku hayaan. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed arrintaas ku baraaruga. Maamul goboleed walbana waxaan u sheegaynaa inuu taas ka waantoobo. Dowladda imaadana waa dowladdaadii la shaqeyso kana daa dhibaatada shacabka Soomaaliyeed isku dhex mari lahaa, isla ganacsigana dhex mari lahaa hor istaagin. Marka waa ku mahadsantihiin akhayr la socodkeena barnaamijkeenan. Tani kulanteeda dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.